asxaabta qaaliga maanta waxaan idinla wadaagayaa qiso qarsoon oo murugo iyo yaab xambaarsan taasoo dhex madhay nin maxbuus oo dil lagu xukumay iyo haweeney jinsiyad muslima oo boolisa markii ninkii xukunka sugayay loo sheegay inuu maalmo kooban oo keliya noolaan doono waxa uu sameeyey codsi la yaab leh waxauna dalbaday inuu guursado haweeneyda booliska ah oo habeenkiisii ugu dambeeyay nolosha la qaato laakiin saaxiib yaal waxa ay haweeneydani samaysay ayaa idinka dhigi doona kuwa afkooda juuqda gabo go'aankeeduna ma ahayn keliya mid la yaab ku noqday dadka laakiin waxa uu ruxay nidaamka garsoorka Kanada oo dhan waxayna ogaatay run qarsoon oo bedeshay nolosha nin aan waxba galabsan daawo muuqaalka ilaa dhamaadka haddii qisadani ku taabatana laabikooyinka dhabta ee xiga haddaba aan bilowna qisadina dhabta ah ee awoodda badan oo ay weheliso sire iyo caad naxdin iyo aan fariiro ku dhex jira waxay ahayd galab jawigu aad u qabow yahay koonfurta Ontario ee waddankaasi Canada cirka cawlka ahna waxa uu ku fidsanaa xabsiga weyn ee Marble House Correctional Complex barafkuna si tartiib ah ayuu ugu daayay daaqadaha ciriiriga ah ee unuga kaligatariska isagoo ku dhalaalayay biraha qabowga badan ee xadiidka adaga gudaha unugaas waxaa fadhiyay Remi Xasan 29 sano jir asal ahaan kasoo jeeda Suuriya balse haysta dhalashada Canada dhabarkiisu waxa uu ku tiirsanaa darbiga indhihiisuna waa ay manaayeen oo gudnaayeen maalintii u dambeysay ee uu xiray timihiisa lama garan karo wajigiisuna waxa uu xambaarsanaa murugo aamusan oo aan la dhaqaajin karin sida barafka ku dhagan muraayadaha oo kale muddo 6 bilood ah Remi waxa uu sugayay taariikhda dilkiisa isagoo ku jira godoomin waxaana lagu xukumay dambiga kufsiga arday jaamacadeed gabar ka tirsan qoys siyaasadeed oo awood badan ku leh Ontario kiiskaasina waxa uu noqday mid si weyn loo hadalhayo warbaahinta dalka oo dhan cadeymaha ka dhanka Remi waxa ay u muuqdeen kuwa aan la xaqiri karin ama aan la dafiri karin garasho qoraal ah oo isagu gacantiisa ku sameeyay marqaatiyaal indhahooda wax ku arkay iyo marqaatiyaashii dhibanaha ayaa si weyn u gulgalay baraha bulshada iyadoo dadweynuhu dalbanayaan cadaalad degdeg in lagu fuliyo ninkani toddobaadyo gudahood maxkamaddu waa ay dhamaysay dacwadii waxayna ku xukuntay Remi Xasan dil toogasha laakiin Remi waxa uu cabsi geliyay xitaa waardiyaashii ugu adkaa xabsiga marna ma qaylin marna ma cabsan marna xitaa xukunkiisa kama awsan murmin waxa uu si aamusnaana u fadhiyay isagoo mar walba ku celcelinaya erayo isku mid ah oo cid kasta wax weydiisa markaasi ku dhahaya anigu dambigaasi ma gelin ilaahay wuu arkaa wuxuuna ogayahay runta ku aasan qalbi kasta waardiyaashu waxay u arkayeen in tani tahay wax laga boqo aamusnaantaas adkaysigaas aan la jebin karin xilli dhimasho la sugayo qaarna waxayba sheegeen inuu waalan yahay kuwo kalena si hoose ayay u hadalhayeen in laga yaabo in ay wax qaldan yihiin isbuuc ka hor inta aan la fulin xukunka dilka Remi waxa uu sameeyey arrin yaab ku riday dhammaan maamulka xabsiga waxa uu gudbiyay codsi rasmi ah mid aan caadi ahayn oo ka yimaada maxbuus sugaya xukun dila waxa uu codsaday inuu la kulmo qof gaar ah sarkaalad Fatima Lagaashi magacaasi waxa uu kiciyay dareen Fatima ma ahayn sarkaalad caadi ah waxay ahayd mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu ixtiraamka badan nidaamka cadaaladda dambiyada ee Ontario haweeney muslima oo 35 sano jir Kanadiyaan ah indha arka dareen kasta oo cadaaladeed leh waxay caan ku ahayd daacadnimadeeda aan la wiiqi karin Fatima waxay xiratay xijaabka si sharaf leh waxa ayna ku dhaqaaqday si xoog leh iyadoo heshay rikoor nadiif ah muddo ka badan 12 sano oo adeeg bulshada waxay la dagaalantay mas'uuliyiin musuqmaasuq isku dayay waxayna ilaalisay muwaadiniin aan waxba galabsan iyadoo aan marna waxba ka bedelin qiyamka ay u taagan tahay siyaasadda iyo awoodda darteed codsigaasina waa uu gaaray miiskeedii fiidkii dambe waxay akhrisay hal mar codsiga ka yimid Remi oo ah ninkii dilka sugayay waxay akhrisay mar kale hadana waxay akhrisay mar saddexaad waxba uma muuqan si macquul ah maxay iyadu u dooratay maxay hadda tahay maxaa sababay in nin sugayo dil hore loo xukumay hore loo cambaareeyay uu doonayo inuu la hadlo iyada oo kaliya marka loo eego dadka oo dhan fikirkeedii ugu horreeyay waxa uu ahaa inay diido ma aysan haynin waqti ay ku lumiso masrax iyo qiyaano laakiin waxba hoos ula hadlay cod yar oo gudaha ayaa u sheegay in kani uusan ahayn dambiilo kale oo raadinaya dareen waxa laga yaabaa inay ahayd waajibaadkeeda waxa laga yaabaa inay ahayd codka aamusnaanta ee damiirkeeda ama ay ogaatay si qarsoodi ah kadibna way ogolaatay subaxii xigay iyadoo la ilaalinaya ammaanka ugu sarreeya Fatima waxa ay dhex madhay jidadka qabow ee xabsiga iyadoo ka gudubtay indhafay jigan iyo kaamarada aamusan waxayna gashay unuga kaligataliska ee Remi markaas uu ku sugnaa waxay istaagtay hortiisa si toos ah oo xasilan iyadoo muujinaysa awoodda sargaalnimadeeda anigu waxaan ahay sargaalad Fatima ayay ku tiri si adag waxaana codsatay inaad i aragto hadal si degdeg ah Remi madaxa ayuu kor soo qaaday muddo dheer ayuu si toos ah u eegayay iyada ma ahayn mid cabsanaya ama dareen naxdin leh ku jiro balse si degan ayuu u eegay waxaan leeyahay codsigii ugu dambeeyay koorintaanan dhiman ayuu ku yiri codkiisa oo hooseeya isla markaana xasiloon Fatima ayaa gacmaha is saaratay oo tiri hadal waxaan jeclaan lahaa inaan ku guursado hal maalin oo kaliya guur sharci ah erayadaasi waxay Fatima ugu dhaceen qalbiga sida unkadka tallaabo ayayna dib u qaaday maxaa tiri waxaan doonayaa guur xalaal ah ayuu si tartiib ugu celiyay ma aha jacayl ama dareen kaliya hal habeen wax kale ma jiraan codkeedu waxa uu noqday bir adag ma waalan tahay adiga ma u malaynaysaa in tani ay tahay kaftan laakiin Remi waxa uu sii ahaaday mid degan fadlan iyo ogolow inaan sharaxo tani ma aha qiyaano ma codsanayo wax xaaraana kaliya waxaan codsaday inaan ku guursado sabab darteed si aan u cadeeyo inaanan jirahaan awoodin waxa laygu eedeeyay carab darteed Fatima ayaa hoos u dhacday si tartiib ahna waxa bedelay wax kale waxaana laga yaabaa inay ahayd wareer maxaad ka hadlaysaa Remi ayaa ku jawaabay
waxaan la ildaranahay cudurka neefaha oo naadir ah waxa uuna iga dhigay inaanan jir ahaan awoodin inaan galmo sameeyo waxaan u sheegay maxkamadda arrintan waxaan codsaday baaritaan caafimaad laakiin cidna ima dhegeysan sababtoo ah qoyska gabadha waa kuwa awood leh wiilkooda adeerka dhibanaha ayaa ah dembiilaha dhabta ah anigu waxaan ahaa keliya qofka saboolka ee la eedeeyey cidna ma rumaysan waxay iga saxiixeen qirasho cadaadis ah waxay yidhahdeen haddii aad saxiixdo waad noolaan doontaa haddii aad diidda laakiin si degdega ayaad u dhiman doontaa waxaana doortay aamusnaanta waxaan ogahay meesha kaamirada qarsoon ay ku jiraan waxaan kaloo ogahay sargaalka qaatay hadalka inuu yahay saaxiibka qoyskaas aamusnaan ayaa dhex madhay iyaga faaduma waxay noqotay eray la'aan laakiin maskaxdeeda mar dambe ayay degtay su'aalo badan ayaana bilaabay inay maskaxdeeda wareegaan waxay filaysay been degdeg ah oo dembiilaha ka timaada laakiin waxay aragtay wax ka duwan wixii ay horey u arki jirtay maxaa dhacaya haddii nidaamka cadaaladda uu dil ku xukumo nin aan dembi lahayn habeenkaasi sargaalad faaduma alqaashi waxay keligeed fadhiday gurigeeda yar ee misorga laabtoobkeeduna horteeda ayuu yaalay isagoo furan laakiin aysan taaban barafka dibadda ayaa sii xoogaysanayay wadooyinka ku daboolaya aamusnaan caddaana laakiin gudaha maskaxdeeda duufaan ayaa socotay eryadii rimi ayaa ku celcelinaya sida hees naxdin loo kale faahfaahin kasta codkiisa degan indhihiisii u muuqday dulmanaha iyo codsigiisii gaarka ah ee guurka hal maalin ayaa diiday inay ka baxaan maskaxda faadima ma aysan ahayn qof si fudud ay u saamayn karaan dareenka ama codsiyaasha xasaasiga ah sanadadii ay ku jidhay laanta sharciga waxa ay baratay sida loo garto khiyaanada laakiin wax la mid ah rimi maysan arag horena olama aanay jaan qaadin waxay fudhay boggeeda shaqo ee amniga leh waxay bilowday inay baarto faylasha kiiskiisa dhammaan wax walba waxay u ekaayeen kuwa nadiif ah marka la eego dusha sare warbixinada booliiska qiraalada maxkamadda qirashadiisa saxiixan xitaa markhaatiyaasha laakiin markii ay raadisay warbixinta caafimaad ee remi uu sheegay in la iska indhatiray waxba maysan helin ma jiraan fayl ma jirin xus mana jirin codsi baaritaan neerfaha ah faadima waxay dib u fadhiisatay kursigeedii dareenkeeduna hadda si buuxda ayuu u baraarugsanaa waxayna go'aansatay inaanay weli ku lug yeelan waaxdeeda haddii ay jidho hal xitaa shay oo run ah uu ku jira waxa uu remi sheegay faaduma ma aysan qaadan karin khatar ah in ay si lama filaana u wargeliso qof qaldan wuxuu xusay in sargaalka baaritaanka ah uu yahay saaxiibka qoyska dhibanaha haddii ay taasi run tahayna shirqoolkani waxa uu markaasi kasii quto dheeraan doonaa intii ay maraynaysay waxay qaadatay telefoonkeeda waxayna wacday doctor ila xasan saaxiib hore iyo dhakhtar baaris caafimaad oo ay si quto dheer ugu kalsoon tahay ila waxaan u baahanahay adeeg aan rasmi ahayn ayay tiri faatima waxay u muuqataa mid culus ila ayaa markaasi ku jawaabtay waa sidaas waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii nin la yidhaahdo rimi xasan uu maray baaritaan neerfaha ka hor xukunkiisa wuxuu sheegay inuu leeyahay xaalad ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn inuu galo dembiga lagu xukumay ilaa su'aal kale maysan weydiinin waxay fahantay culayska ku jira codka faatima ii soo dir nambarka maxbuuska waan baari doonaa subaxdii xigtay faatima iyadoo cabaysa kafiya xafiiskeeda fariin ka timid ilaa ayaa kasoo muuqatay khadka waxaa la socday dukumiinti la iskaangareeyey oo lagu taariikhiyey bilo ka hor laguna calaamadeeyey sir ah waxay ahayd warbixin caafimaad oo dhammaystiran oo la sameeyey maalmo ka hor maxkamadaynta remi xasan natiijooyinku waxay ahaayeen kuwo aan la iska indhitiri karin qofkan waxa uu la ildaran yahay xaalad neerfaha oo naadir ah awood la'aan shaqaynaysa oo sabab u ah cillad ku timid xididada dhiigga neerfaha galmo jireed waa mid aan suurtagal ahayn faaduma waxay si aamusnaana u fiirisay shaashadda iyadoo la yaaban wuxuu sheegay runta laakiin warbixintaasi weligeed laguma darin dacwadda maxkamadda galabtii iyadoo adeegsanaysa ogolaanshaheeda sargaal booliis faaduma waxa ay booqatay filada la sheegay in weerarku uu ka dhacay waxay timid iyadoo sheeganaysa inay tahay kormeer caadi ah oo ku saabsan kiis hore qoysku waxay ahaayeen kuwo edab leh waxayna xaqiijiyeen in kaamiradaha amniga ay ciladeysnaayeen habeenkii dhacdada laakiin faaduma ma aysan rumaysan markii dambe waxay la xiriirdhay shirkadda tiknolojiyadda ee rakibtay nidaamka kaamirada amniga kadib dhowr wicitaan oo joogto ah mid ka mid ah farsamayaqaanada yararka ugu dambeyntii wuu jebiyey marwo xitaa haddii kaamiradaha ay jabeen muuqaalada kaydka ah waxaa lagu kaydiyaa sarfarka daruuraha dibadda inta badan macaamiishu xitaa ma oga arrinkan ilaa ay markaasina weydiiyaan ma heli kadha ayuu ku tiri waxay ku xiran tahay waxaad u baahan tahay ogolaansho qoraal ah waad heli doontaa ayay faaduma si kalsoonila ku tiri 2 maalmood kadibna muuqaalka ayaa yimid qalbigeedu si xoog leh ayuu u garaacay iyadoo furaysa faylka oo daawanaysa keliya muuqaalada habeenkaas wuxuu ahaa mid si cad u muujinaya hal arrin oo naxdin leh ninka muuqaalka ku jira ma ahayn remi xasan waa nin kale oo dhalinyaro ah dheer wejigiisuna nadiif yahay oo leh nabar muuqda oo ku yaala dhabanka midig faahfaahin ma aysan lahayn wax la mid ah muuqaalka remi laakiin si buuxda ayay ugu habboonaayeen sawirada dadweynaha ee adeerka dhibanaha aadan maalig ninka lagu magacaabo gacmaha faadima waa ay gariireen iyadoo joojinaysa muuqaalka dembiilaha dhabta ah waxaa ilaalinaya qoyskiisa halkii remi xasan oo ah nin sabool ah keligiisa aan lahayn taageero siyaasadeed la been abuuray lagu qasbay lana tuuray sida xoolaha oo kale iyadoo aan waqti kala lumin faaduma waxay daabacday dhammaan cadeymaha warbixinada caafimaad muuqaalada sawirada iyo jadwal buuxa waxaana si toosa ugu dirtay xafiiska dacwad oogaha guud ee gobolka markii habeenkii la gaaray codsi degdega ayaa loo gudbiyey maxkamadda racfaanka ee Ontario sheekaduna si degdega ayay u faaftay sida dabka duurka saxaafaduna waxa ay maqashay warar hoose ururada xuquuqda aadanuhuna waxa ay bilaabeen inay wareegaan 24 saacadood gudahood ciwaanada
wararka waxay ahaayeen meel kasta maxbuus dil sugaya ayaa laga yaabaa inuu yahay midaan waxba galabsan caddeyn cusub ayaa muujinaysa qalad weyn oo cadaaladeed oo ka dhacay kiiska Ontario yaa dhab ahaantii kufsaday gabadha siyaasiga iyo waxyaabo la mid ah laakiin Fatima arintani ma ahayn oo kaliya ciwaano warbaahineed waxay ahayd nin saacado uun kaga hadhay dilka ay dawladdu ku ansixisay dembigiisuna waxa uu ahaa saboolnimo kelinimo iyo sida fudud ee lagu bedeli kara dambi aan u gelin maalmihii xigana waxay ahaayeen isku dhaxya warar degdeg ah ama maxkamadeed iyo caradad weyne oo sii kordhaysa markii maxkamadda racfaanka Ontario ay isugu timid kulan degdeg ah bartamaha magaalada Toronto guud ahaan Canada ayaa daawanaysay markii ay warbaahintu waaweyn dhamaantood sheekada qabsadeen cadaadiska saaran nidaamka garsoorka waxa uu noqday mid aan la qaadan karin qolka maxkamadda waxa ka buuxsamay dad kala duwan suxufiyiin qareeno xuquuqda aadanaha arday iyo dadweyne dhamaantoodna waxa ay fidhiyeen iyagoo aamusan oo xiiseynaya sheekada bartamaha qolka sarkaalad Faaduma ayaa taagneed iyadoo xiran dharka rasmiga ee booliiska gacanteedana ku haysay feelal buuxa oo cadeymo ah waxay heshay ogolaansho gaar ah si ay si toos ah maxkamadda ugu soo bandhigto natiijooyinka codkeeda inkastoo uu deganaa wuxuu lahaa xoog iyo kalsooni tani ayay tiri iyadoo kor u qaadaysa warbixinta caafimaadka waa qiimeyntii neerfaha ee asalka ahayd ee lagu sameeyey Remi Xasan oo uu sameeyey dhakhtar shatiyeysan waxay si cad u sheegaysaa inuu qabo cudurka neerfaha oo ka dhigaya mid aan awood galma sameyn karin waxay si cad u sheegaysaa inuu qabo cudurka neerfaha oo ka dhigaya mid aan awood u lahayn inuu galmo sameeyo dukumintigana weligiis looma gudbin maxkamadda kadib waxa ay soo bandhigtay muuqaal laga helay kamarada qarsoon oo ku rakibnayd gudaha filada qolka maxkamadda ayaa si lama filaan ah u aamusay markii muuqaalka la daawanayay waxay muujisay nin aan ahayn Remi oo markaasi galaya qolka dhibanaha habeenkaasi wejigiisa si cad ayaa loo aqoonsaday aadan maalig oo ah adeerka dhibanaha aqoonsigiisii waxaa sii xaqiijiyay calaamad dhalasho iyo nabar ku yaala dhabankiisa qofna ma diidi karin waxa ay arkeen markii booqiya hadalhayn ka dhex bilaabatay maxkamadda garsooraha ayaa gacanta kor u qaaday si uu amarka markaasi dib ugu soo celiyo Faaduma waxay sii waday hadalkeeda muuqaalkan la qariyay kaamaradaha waxaa lagu sheegay inay cilad galeen balse sarfarka kaydka waxa uu hayay duubista intaa waxaa dheer sargaalka wareystay Remi detective Charles Greaves ninka lagu magacaabo waa qof si wanaagsan ula xiriiray qoyska Maalig oo aad ugu dhawaa isaguna waxa uu kormeeray cadaadiska sababay qirashada been abuurka ee Remi waxay hakad yar gashay ka hor inta aysan hadalkeedii sii wadan nidaamku wuu fashilmay balse runtu ma aysan dhiman garsooraha ayaa muddo kooban aamusay farihiisuna waxa isugu tagaan afkiisa hortiisa kadib si xushmad leh ayuu ugu jeestay xafiiska qoraalada maxkamadda jooji fulinta xukunka dilka si degdeg ah hana la bilaabo dib u eegis buuxda oo maxkamadeed iyo baaritaan gudaha ah oo ku saabsan detective Grave iyo dhammaan dhinacyada ku lug leh in la qariyo cadeymahan qolka maxkamadda ayaa si buuxda u qarxay ilmo ayaa indhaha Faaduma ka soo daadatay balse way iska moostay tanina ma ahayn arrin iyada ku saabsan waxay ahayd arrin ku saabsan nin 6 bilood ku qaatay xabsi qabow isagoo tirinaya maalmaha ilaa geeridiisa dhanka kale gudaha xabsiga Mabalhaas Remi waxa uu fadhiyay unugiisa isagoo aan ka warhaynin waxa ka dhacaya albaabka birta ee ka dambeeya waa uu soomana wuu ducaysanayay iskuna diyaarinayay dhamaadka markaas ayaa albaabka furmay laba askari oo xiran dharka ciidanka ayaa soo galay waxaana daba socday maamulaha xabsiga nin aan si weyn ula hadlin Remi intuu uu xabsiga ku jiray Master Xasan ayuu yiri maamulaha codkiisu wuxuu ahaa mid ka jilicsan sida caadiga ahayd qalabkaaga soo aruurso waa lagu sii dayn doonaa Remi ayaa kor u eegay isagoo yaaban maxay xukunkaaga waxa baabiyay maxkamadda racfaanka gurigaaga ayaana aadi doontaa Remi ayaa eegay dibnaha ayaa gariiray wuu aamusan yahay mana hadlin ma uusan rumaysan ilaa askarigu uu ka furay silsilada gacmihiisa markaas ayay ilmadu si aamusan oo xore uga soo daadatay banaanbaha xabsiga cirka cawlka ah ee culus sargaalad Faaduma waxa ay taagneed iyadoo xiran jaakad madow marada madaxeeda si adag ugu dabooshay markii Remi uu soo baxay kelmad ma aysan oran kaliya way eegaysay wuxuu istaagay hal daqiiqo isagoo yaaban kadib si tartiib ah ayuu indhihiisa ugu jeediyay daruuraha yaa rabbi ayuu si hoos u yiri waxa kaliya ka bariyay runta adiguna waxaad haysay cadaalad Faaduma ayaa hal talaabo hore u soo qaaday waad saxneed Remi dhammaan arrimihii aad ila wadaagtana waxay ahaayeen kuwo markaasi xaqiiqa waxa u jeestay dhankeeda kuma weydiisan inaan ku guursado si naftaydu ay u badbaado waxaan ku doortay adiga maxaa yeelay waxaad ahayd qofka kaliya aan rumaysnaa inay dhab ahaan dhageysan doonto Faaduma waa ay dholo cadaysay si fudud madaxa ayuu ruxay kadibna waxa uu waagay meel fog oo ka dambeysay iyada barafka ayaa joogsaday dabayshii waa ay istaagtay iyada oo tilaabo degan oo xishood la qaadaysa ayuu Remi ka tagay xabsigii ku dhawaaday inuu markaasi noloshiisa xado gadaashiisa waxa uu ka tagay silsilado iyo aamusnaan hortiisana wadan weli la daaladhacaya runta iyo sidoo kale wada dheer oo bogsiin u baahan laakiin xilligaasi hal shay ayaa cadda cadaaladdu inkastoo ay dib u dhacdo ugu dambeyntii way hadashay Remi waxa uu u baxay dunida dibadda ma ahayn sidii nin xor ah balse sidii nin isku dayaya inuu xasuusto waxa xorriyadiisu dhab ahaantii tahay hawadu waxay u wareysay si ka duwan dunidii qabowga iyo mugdiga cirkii oo markii hore kaliya uga muuqan jiray daloolo yaryar oo ku yaala derbiga xabsiga hadda waxa uu ku fidsan yahay si ballaaran dusha sare
wejigiisu inkastoo uu daalan yahay waxa uu xambaarsanaan nabad oo muddo bilo ah markaasi ku taamayay. laakiin adduunka dibadda ayaa isbedelay. warbaahinta oo si weyn uga hadashay sii deynta ayaa ka dhigtay astaan degdeg ah oo u taagan cadaalad darro, iska caabin iyo iimaan. kaamirooyin ayaa raacay dhaqdhaqaaqiisa kasta. wariyayaal ayaa ka dhigay hoygiisa kumeelgaarka ah ee Skara mid ay ka buuxaan ciwaanada wararka oo markaasi iftiimayay ama ka iftiimayay shaashada Canada. nin si qaldan loo xukumay oo la sii daayay kadib markii ay soo baxeen cadeymo cusub, laakiin caan noqoshadu ma ahayn waxa uu Remi doonayay. waxa uu ku qaatay toddobaadkiisii ugu horreeyay kelinimo iyo xasilooni, isagoo la joogay bulsho muslim ah oo yar oo ku soo dhaweeyay sidii walaal muddo dheer ay waayeen oo kale. imaamka masjidka East York ayaa siiyey qol, cunto iyo waxa ugu muhiimsan oo ah meel uu ku baroordiiqo, sababtoo ah xorriyadda markii hore waxay u egtahay murugo ku saabsan bilihii la xaday, ceebtii uu la kulmay iyo adduunkii ka jeestay markii uu u baahnaa. dhanka kale sarkaalad Faadumo kama aysan dhammaan hawsha. hadda waxay ahayd bartamaha dabayl siyaasadeed oo xooggan. geesinimadeeda ay ku fashilisay musuqmaasuqa ayaa ka dhigtay geesiyad markaasi indhaha dadweynaha ay wada hayaan. waxaa loo yeeray kii arrimaha gudaha si isdaba jooga ayaa loo weydiinayay sida uu ku helay caddaynta, haddii uu jebiyey habraaca iyo haddii uu ka gudbay xadka. haddii shaqadaydu ay tahay inaan baaro daboolidda musuqmaasuqa, taas waan ku faani doonaa, ayuu yiri waraysi warbaahineed. waxaa la ii doortay inaan sharciga ilaaliyo, ma ahan inaan awoodda ilaaliyo. ereyadiisuna waxa ay taabteen dadweynaha Canada, gaar ahaan bulshooyinka muhaajiriinta iyo muslimiinta oo iyagu markaasi taageeray. codsiyo ayaa la faafiyey, mudaharaadyo ayaa ka dhacay bannaanka maxkamadda. Faadumo waxa ay noqotay cod aan keliya u hadlin Remi Xasan, balse u hadla dadka dulman oo dhan. dibadda qolka salaada ee masjidka, Remi inta badan waxa uu fariisan jiray daaqadda isagoo carruurta ku ciyaaraysa barafka daawanaya. wax badan ayaa laga xaday, laakiin iimaankiisu ma ahayn mid la xaday. maalin kasta waxa uu baryo ma ahayn argoosi, mana ahayn magdhow, balse nabad iyo inuu Ilaahay hanuuniyo adduunkan burbursan ee ku adkaadayna ka badbaadiyo. markaas subax ayaa warqad u timid. waxay ka timid xafiiska dacwada ogaha federaalka. qoyska Maalig, kuwa abaabulay dhibaatada kugu dhacday waa la baarayaa. aadan Maaligna waa la xiray, waxaana lagu soo oogayaa dacwad ka dhana carqaladaynta cadaaladda, afduubka, galmada iyo shirqool. baare Charlesna waxaa laga joojiyey shaqada muddo aan caayimnayn. garsoorihii iska indhatiray warbixintana waa uu iscasilay iyadoo cadaadis bulsho markaasi uu jiro. waxay ahayd cadaalad gaabis ah oo aan dhammaystirnayn, oo xanuun badan balse cadaalada. toddobaadyo kadibna Faadumo waxa ay booqatay Remi. waxay fadhiyeen qolka nasashada ee xarunta bulshada, shaah ayay cabayeen. waa dacwoonkan ayay si hoos u tiri, waxaad leedahay malaayiin oo kuwaasi aad ku leedahay oo magdhow ah oo maxkamaddu kaa siin doonto. Remina madaxa ayuu ruxay. lacag ma soo celin kardho waqtigii lumay, ceebtii iyo cabsi aan ku dhiman lahaa wax aanan samayn dartood, laakiin waxa ay ku siin kardhaa bilow cusub. indhihiisuna waxa ay ku shubeen dhoolacaddan yar. horey baana u haystay middaas, ayuu yidhi. Faadumo ayaa dhoolacadaysay, indhaheeda naxariista leh ayayna ku eegtay. adigu waxaad ka xoog badan tahay in badan oo ka mid a dadkaan garanayo. hoos ayuu eegay si is-hoosisiin leh. tani ma ahan xoog, waa isdhiibid. waxaan xukunkayga u dhiibay Allah, wuxuuna i siiyey nabad. dunidu weli waa qabow, weli waa jaban tahay, laakiin waxbaa isbedelay. bilo kadib waxaan daawanaya dokumentari ciwaankiisu yahay runtii la aasay, sheekada Remi Xasan, waxayna ku bilaabatay codkiisa degan oo xasiloon. mararka qaarkood cadaaladdu waa ay hurdaa, balse weligeed ma dhimanayso. waxay sugtaa qof soo kiciya oo keliya. dhammaan Canada dadku ma daawan sheeko cadaalad darro oo keliya, balse rumaysnaan iyo iimaan aan la taaban karin, geesinimo aan daal lahayn, iyo xasuusin in runtu si qoto dheer loo aasay had iyo goor ay iftiinka heli doonto. saaxiibayaal, tani waa sheekadii dhabta ahayd ee maxbuus aan dembi lahayn oo nolosha ku soo laabtay, iyo haweeney boolis ah oo geesiyad ah oo la dagaalantay cadaalad darro. sheekadani waxayna xasuusinaysaa in runta laga yaabo in la aaso, balse weligeed aanay dhiman. haddii aad rumaysan tahay in sheekadani ay gudbinayso fariin xooggan oo ku saabsan cadaalad darro, cadaalad iyo iimaan, fadlan la wadaag muuqaalka dadka aad jeceshahay si dunidu ay u ogaato